qiimaha ay leedahay haddii ilaahay raalli ka dhigo. Waxaan ku bilaabaynaa waa maxay Ombasif. Sida aan ognahay caadiyan Ombasif waa company technology isticmaalo AI ama caqliga macmalka ah artificial intelligence-ga waliba modelkii ugu dambeeyay isticmaalo. Marka muhiimaddu waa intaas qodobka koowaad ee waa maxay Ombasif. qodobka labaad haddaan u gudubno insha Allah tacaala qodobo badan aan dul istaagi doonaa ilaa 15 qodob ka soo qaadanay waa maxay Ombasif haddii ilaahay raalli ka dhigo ilaa 10 qodobna waxaan ka soo qaadanay qiimaha uu company-gu u leeyahay. qodobka labaad haddaan u gudubno magaca company-gan waa Ombasif. Ombasif xaraf kasta wuxuu u taagan yahay sagaalkaas xaraf macna gaara runtiina wuxuu u dhisan yahay qaab ka qofka bini'aadanka muuqaalkiisa oo u samaysan yahay markaad akhriso akhriska guud ee xaraf kasta meaning-ka ku jiro markaad hoos u akhrido. macnaha qofka bini'aadanka markuu taagan yahay madaxiisii garbihii gacmihii dhabarkii lugihii qaabku u samaysan yahay bini'aadanka ilaahay qiimaha uu u yeelay oo u dhammaystiray saasoo kale u taagan yahay. marka waa magac aad iyo aad u qiimo badan. qodobka saddexaad oo dul istaagayno xarumaha company-ga halkee ku yaaleen adduunka hadda waxaan ku xiriiraynaa aaladii internet aan ku xiriirahaynaa 5 qaaradood oo dunida ayaan kala joognaa. xarumaha company-ga waxay ku yaaleen 6 xarumood oo ugu waaweyn. waxay ku yaaleen xarunta koobaad ee headquarter-ka company-ga Mareykanka Florida gobolka Orlando ayuu ku yaalaa. xarunta maamulka iyo marketing-ka iyo waliba finance-ga waxay ku taalaa waddanka isku taga Imaaraadka Burj Khalifa. xarunta wax soo saarka waxay ku taalaa Hindiya Hyderabad. xarunta isku xirta bariga fog iyo bariga dhexe iyo Yurub waxay ku taalaa Singapore ayay ku taalaa. machine learning-ka iyo horumarinta programmada waxay ku yaaleen Egypt. sidoo kale xarumaha wax soo saarka ee la taaban karana waxay ku yaaleen oo ku taala Bangladesh. haddaba 6daas xarumood ayaa hadda sida official-ka anaga aan u naqaanaa asagoo company-gu ballan qaaday inuu adduunka oo dhan uu geey doono xarumihiisa haddii ilaahay raalli ka dhigo. meelaha ugu soo horeeya waxaa la sheegaa inay tahay UK iyo isla gobolka waddanka Mareykanka gobol ka mid ah. sidoo kale waddamada safka hore ku jira waxaa ka mid ah South Africa, Senegal, Australia. marka insha Allah tacaala anagana ka mid ah noqon doonaa. xarumaha company-ga haddaan ka soo gudubno ujeedada company-ga Ombasif loo sameeyay maxay tahay waxaan ka soo qaadanaynaa 3 qodob oo gaaban. kow equal opportunity fursad isku wada mid ah in la helo fursad isku wada mid ah laga helo Ombasif dhexdeeda oo cid kasta ay ka faa'iideysan karto ayadoo jinsiyad loo fiirinayn system gaar ah loo fiirinayn aysan jirin. labo in la saxo waxa la yiraahdo musuqa correcting the corruption-ka in lagu saxo oo internet-ka waxa laga sameeyaa billions lacagaha laga sameeyaa waliba suuqa ugu weyn adduunka maanta aan joogno waa internet-ka. 70% waxaa la sheegaa waxyaabaha wax lagu kala iibiyo lagu kala wareejiyaa inay tahay internet-ka. haddana waxaa 70% ka yimaado khasaare fara badan in oona khasaarahaas imaanin loo yareeyo la saxo fursaduna loo mid loo wada sameeyahay noqoto ayaa loo sameeyay. qodobka saddexaad uplifting humanity bini'aadanimo nolosha bini'aadanka wax laga bedelo. marka ujeedada company-ga loo sameeyay waa taa. haddii aan fiirino qodobka 5aad oo ah main objective waxyaabaa ugu waaweyn company-gan inuu soo saaray productyaal 52 product oo wada digital. waxaad 52 product oo wada digital ah oo baahida bini'aadanka dunida ku nool ku xiran oo ina ka maarmin ayuu company-gan soo saaray. waxyaabaha ugu si muhiimsan oo ka mid tahay waxyaabahaas digitalka 52 maxaa ka mid ah email. adduunyada maanta qof kastoo YouTube isticmaalo Facebook isticmaalo Instagram Telegram meel walbaba sheeg xafiis caadiya WhatsApp xataa caadiga markaa isticmaalaysid email la ma isticmaali kartid. qofku waa inuu email haysto kabacdi oo programka fudaaniyo. company-gan wuxuu leeyahay email u gaara oo la yiraahdo Omail oo capacity-giisa uu yahay unlimited
haddana leh fiijaro aan weli hore iimayladii adduunka ka jiray aan laga helin hadday tahay voice recording hadday tahay voice takis hadday tahay video recording waxyaaba fara badan uu leeyahay oo hore loo soo arkin waxaa ka mid ah barihii bulshada sida facebook iyo kaleetuu leeyahay owned oo waxyaabaha muhiimka ah oo kabanigan la taabo kara ay ka mid tahay objectivekiiska waxaa ka mid ah aaladda hadda caawa aan ku wada hadlayno ee Oconnect Mombasa ayaa soo saartay oo iska leh ayada ayaa iska leh aan ku wada hadlayno shigidu ma baahnaba waan joognaa waa tanaan waxaa la yiraahdaa sagar muuqda su'aal kana waa hagaag marka waxaan u gudbaynaa qodobkii lixaad oo ah goorma kambanigan la aasaasay kambanigan waxaa la aasaasay 2017 ayaa la aasaasay laakiin systemkan teknolojiyadda wuxuu bilowday 2018 laga soo bilaabo waqtigaas ilaa maanta oon joogno 23ka Mombasa maalinba maalinta ka dambayso waxay noqonaysaa in populationkeeda iyo communitydeeda iyo wadamadeeda way ka sii kordhayaan qodobka toddobaad aasaasiyaasha yaa way kambanigan yaa soo aasaasay oo gundhigu ah dadka aasaasiyaasha kambanigan waxaa la sheegaa inay yihiin 1.4 million people ka kala yimiday ilaa 212 waddan oo dunida dacaladeeda ah oo dhammaan adduunka oo dhan shanta qaaradood ka yimiday waxaa la sheegaa dhammaantood dadkaan iyadoon loo fiirinin waddan gaara dunida koobaad dunida labaad iyo dunida saddexaad aan loo fiirin si isku wada mid ah ayay si share isla wada eg iyo system isla isku wada mid ah ku wada bilaabay waa qodobkii hore aan uga soo hadalnay oo ahay equal opportunity qodobka sideedaad fikirka nidaam noocaana in la keeno dunida yaa iska lahay waxaa iska lahay ninka lagu magacaabo Ash Mufarrah oo aabaha Mombasa ah ama madaxa Mombasa hogaamiyaha Mombasa madaxweynaha ah ayaa iska leh Ash waa nin muslim ah ku dhashay waddanka Mareykanka ku soo barbaaray ku wax bartay sito shahaadada labaad ee master degree ee loo yaqaano ITE ama Information Technology E-commerce isagoo ka qaatay jaamacadda ku taalo waddankaas Mareykanka ee la yiraahdo Intercontinental University of America Ash haddaan wax yar kusii dul istaagno laga soo bilaabo bartamihii sagaashameeyihii ilaa waqtiga la joogo wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka ku xeel dheer aaladda internet aan maanta aan isugu nimiday ka samaynteeda online marketing in lagu sameeyo marketing lagu sameeyo dadku waa khibradda badan oo ka mid yahay especially haddana AI dhanka AI-ga in looga sameeyo online marketing dadka ugu farakutirska adduunka ayuu ka mid yahay jaalo badan oo la isweydiiyay ayaa jiro Mombasa ka hor Ash muxuu ahaa jiray ma siyaasi ahaa jiray ma ganacsado ahaa jiray ma professor jaamacadeed ahaa jiray muxuu ahaa jiray su'aashaas dad badan ay isweydiiyo laakiin waa very simple Ash Mombasa ka hor wuxuu madax ka ahaa jiray company la yiraahdo GDI oo raadi kartaa oo raadi kartaa oo wuxuu ka ahay madaxweyne oo ka ahay waqti dheer waliba 6 sanadood oo madax ka ahay wixii kasii horeeyay waliba qaybo kala gedisan oo ku soo shaqeeyay waxaan u gudbaynaa qodobkaas halkaas aan ugu gudbaynaa qodobka 9aad aan u gudbaynaa kambanigaani goormuu soo launch garoobay wuxuu launch garoobay kambanigan 2022 bishii 11aad 20keedii maalintii ciyaaraha adduunka ay ka furmaayeen magaalada Dooxa ee waddanka Qatar isla maalintaas wuxuu ka muuqanayay shaashada in ay ka soo tobinayso ciyaaraha adduunka halkaas oo indhaha caalamka magacaan Mombasa soo jiidasho weyn ay ka heshay waa hagaag Mombasa qodobka 10aad haddaan u gudubno productigii ugu horeeyay ay soo saartay Mombasa oo ah sida hore u sheegnay midkaan isticmaalayno oo Connect wuxuu yimiday April 23ka waxaan ka wadaa 2023ka ee sanadkan wali aan ku guda jirno
maalintii koowaad ay suuqa tagtay Mombasa waxay ahayd 1 September 2023 shaygii koowaad oo suuqa la geeyna wuxuu ahaa Connect oo hadda aan isticmaalayno qiimihiisuna uu yahay bishii $125 seedka ka soo qayb geli kara markaasna uu yahay 10,000 oo qofood iyo 1,000 oo attendees 1,000 oo speakers aan sidoo kale 3 bilood ayaa la saaray ay tahay maxaan ku raadahay 125 oo u dhiganto 335 albir free $10 oo soo dhaweynayay isku celceli $240 ayaa qiimihii 3 bilood packaging ayuu qof kasta ayuu ku soo sameystay subscription activation accountkiisa ilaa haddana way furan tahay bishii labaad ayaana ku jirnaa waxa kale oo mudnaan leh oo weli adduunyada hore looga arkinin oo fursad kala ah qofku markuu first sale ama uu sameysta asiga customer ama uu company gu sameeyo 100% lacagtiisa way soo noqonaysaa sale-ka labaad iyo wixii ka dambeeyana 20% ilaa 25 ayaa u soo noqonayso markaas iib ku dhacay never company sameey ma jira midaas waxyaabaha aan ku faanayno haddaan nahay qoyska reer Mombasa ayay ka mid tahay waxyaabaha aan ku hogaaminayno aaladda la isugu yimaado ee Connect sida aaladihii hore u jiray oo kale oo maanta aan ka casriysanahay ka wanaagsannahay ka feature badannahay aan ku faanayna ayay ka mid tahay waa dhaqaalana ka sameey waxa lagaaga sameeyo adiguna isticmaal ku wax baro miitinada ku qabso wax walba ku sameyso qodobka 12aad Mombasa fiyaa ka shaqeeyo Mombasa waxa ka shaqeeyo dad saameyn hore u lahay ganacsiga xeelad dheer ku lahay la taliyaal sare ahay la taliyaal ganacsi la taliyaal dawladeed adduunka dalcanka ahay ayaa xagga horena fadhiyo xagga dambena fadhiyo ay ka mid yihiin madaxa operationada sida Maxamed Kamaal Maxamed Nazaal tusaalahan hadda u soo qaatay labadaas nin waxa kale oo Mombasa ka mid ah leader aad iyo aad u qiimo badan oo caalamka ilaa 212 waddan adduunka joogo waxa ka mid ah leaderada ugu soo sareeyo sida Red iyo Martin Digarma Chris Johnson Abdi Alasow Nafisa Abdudon iyo waliba kuwa fara badan waan ku faraxsanahay in leaderadaas caalamka ay ka mid yihiin leaderada Soomaaliyeed qodobka saddexaad partnership company-ga ayuu wada shaqeyn leeyahay sida aan ognahay oo markaati aan ka nahay Mombasa waxay wada shaqeyn rasmi ah ay la leedahay dawlado company-yaal hay'ado oo wada aan markaati ka ahaadeen ku beeristoodii xalfadihii la dhiganayay heshiisyadii la kala qoranayay ay qaar ahaayeen kuwii ugu yaraa 2 sano ay ahaayeen wixii ka badan 10 sano ayaan arkaynay tareenka aad ogtihiin Dubai ka shaqeeyo oo intaasoo milyan bardhay ay isku dhex marayso oo qofood ay fuulaysa ka degayso xaruntiisa cidda maamusha waa company-ga Mombasa markaad soo galayso codka mashiinka ku soo dhaweyna waa Mombasa iyo markaad ka degayso labada waa company-ga Mombasa sidoo kale waxaad arkaysaa moolasha waaweyn iyo xarumaha waaweyn oo dhan calaamadaha iyo waxaad ka arkaysaa logoda company-ga ayaa halkaas ka muuqanaya okay wada shaqeyntii taas ayaan ugu gudbaynaa qodobka 14aad waxaan u gudbaynaa Oplas Mombasa waxay leedahay qayb dhan oo u gaara oo bini'aadanimada loo asteeyay taasoo markaati ka ahaynay dhibaatadii ka dhacday waddanka Turkiga iyo Syria sida ay uga qayb qaadatay ayadoo waliba kaashanaysay bisha cas ee waddanka Imaaraadka bisha cas ee dunida bisha cas ee waddanka Turkiga iyo Syria ee halkaas hoggaan iyo hormuud ay ka ahaayeen Maxamed Kamaal iyo team culus oo dhaqaatiir iyo gargaar fidinayay dadkii dhibaatada ay ku dhacday runtii waxay ahayd wax taariikhi ah Mombasa markii ay ka qayb galayso barnaamijkaasi suuqa ma aysan imaanin productigeedana lama isticmaalaynin laakiin waxay ahayd wax taariikhda galay Mombasa inay taariikhda gashay waxa kugu sii daliila wada shaqeynteeda ee kambaniyasha caalamka kuwa ugu sarreeya la shaqeynayso Gitis shirkad tiknoolajiyada 6,000 oo company ka soo qayb galayaan oo 16 October furmayo
saddexda company oo logodooda ama calaamadooda ay kor ku qoran tahay oo hormuudku u ah ay ka mid tahay taa marka waxa weeyaan waan dhihi karnaa waan ku faraxsannahay ilaahay baan uga mahadcelinaynaa inaan ka mid nahay companygaas caawa qodobka 15aad waxaan rabaa inaan dul istaagno qodobo badan oo dadka isweydiiyaan jiro fundaraata adiga iyo waxa tahay reseller waxa weeyaan funder iyo reseller anaga dhammaan waxa wada nahay funding members hadaan nahay dhammaan affiliate wada nahay dhammaanteen waxaan nahay users aan nahay dadka hadda oo connectiga saxiixay haddii funding members yihiin iyo haddii ay yihiin dadkii walaalihii gadaal ka yimiday dhammaantood waxaan wada nahay top VIP position ee wada joogno saadaalinta markii aan aadna dhinaca saadaalinta adduunka hadda waxaa la saadaaliyaa 2030 markii la tago qof shaqo uu kala hayo inuusan diri doonin arday buugaag iskuul u qaadaan inuu diri doonin qof kasta gurigiisa oo ka shaqaysan doono gurigiisana oo waxbarashadii iskuulka uu rabo iyo jaamacadda uu rabo oo ka dhiganayo taa marka waxay u tahay calaamad u tahay companyga Umbasifo maanta keenay systemkii wax lagu baranayay oo fikradiisii wato walibana e-learningkii adduunka onlinekii ka jiray si hab ka casriyeysan oo wali hore loo arkinin keenay oo markaati aan ka ahaynay hadda inay ku soo biireen jaamacado fara badan ay qaateen systemka Umbasifo ay kamid tahay jaamacadaha waddanka Mareykanka ee hogaaminaysa jaamacadda ugu horeysay ee ahayd jaamacadda Washington University waxa kamid ah jaamacadaha waddanka Algeria ayaa kamid ah runtii ilaa 1500 jaamacadood ayaa hadda la sheegaa inta aan ogsoonahay taa marka saadaalinta markaad fiiridid iyo siday wax u socdaan iyo qaabka ay wax yihiin iyo hadda productiga aan haysano caawa aan ku wada hadlayno waa wax markaati doonta ah oo anaga markaati aan ka nahay marka inta waxaan uga bixaynaa waxaan filayaa intaas yarta inay nooga filan tahay ama waqtiga ilaalinayo waa maxay companyga Umbasifo marka waxaan rabaa inuu u gudbo qiimaha uu leeyahay companyga Umbasifo maadaama aan ka soo hadalnay wuxuu ahay oo maanta yahay halka uu marayo Umbasifo waa fursad ganacsi oo cajiib ah oo loo dejiyay habka ganacsiga ee ugu wanaagsan adduunka maanta la joogo dunida 2023 waqtigan run ahaantiina horumarkan waxaa loo sameeyay bini'aadanka adduunka joogo isticmaala internetka si isku wada mida inay u helaan fursadan ay uga wada faa'iideystaan okay qodobada aan rabo markayna soo qaato waxaa ka mid ah xorriyadda maaliyadda xorriyad dhaqaale iyo xorriyad waqti Umbasifo mar haddaad ka mid noqotay activationkiina aad saxiixday oo subscriptionkii aad samaysatay waa gaadhay boos la gaaro adduunka kii ugu wanaagsanayo kaas oo ah in aad haysato waqtigii xorriyadda iyo waqtigii dhaqaalaha maxaad helaysaa marka mar haddaad heshay waqtigii dhaqaalihii mar haddaad heshay waxaad helaysaa fursad aad waqti kula qaadatid carruurtaada qoyskaada aad heshay ehelkaada asxaabtaada okay Umbasifo la noqo marka lamaan la noqo yaa lagaaga soo komarin yaa lagaaga hormarin kamid ahaw oo fursadan ka faa'iideyso Umbasifo wuxuu ku diyaariday helitaan xalal dhameystiran oo aad ka helaysid wax kasto oo aad maskaxdaada ku soo dhaco oo adduunyada aad uga baahato Umbasifo waxay ku fududeynaysaa xal kasta oo haddana gudaheeda ku jiray ee ay ku qabanayo oo shaqadii ku fududeynayo haddii presentation tahay haddii program tahay haddii meeting tahay wax walba haddana ku sameeyay oo asiga shaqadii ku qabanayo oo aad ka fiirsanaysid kaliya meesha ugu dambayso oo ah faa'iidadii ku soo dhacday ama natiijadii ku timid hadaad macallin tahay shaqadiisaas ku qabanayo hadaad wariye tahay sidoo kale hadaad dhaqtar tahay sidoo kale hadaad siyaasi tahay waxa tahay ba ahaw waxaad haysataa caawiye ku caawinayo ku shaqeynayo dhaqaalihiina dhinac aad ka samaysanaysid noloshaadii kale dunidana adduunkana ku qabanayo waxyaabaha companygan oo aan innaba la ilaabi karin oo lafdhabar ku ah waxaa ka mid ah
beddelka nolosha maanta taagan oo loo bedelayo adduunka oo dhan green barwaaqo sooran asoo u marayo oblas waxaa runtii la yaab ah oo qiimaha oo kambanigan ku leeyahay waxaa ka mid ah Ombasif dadka ka mid ah oo affiliatedka userska reer Ombasif oo dhan ama funding member ha ahaadaano ama dadka gadaalka yimid ha ahaadaano dhammaantood waa hal qoys waa hal shakhsi waa dheer tahay waa gaaban tahay waa cad tahay waa madow tahay diin hebel ah haysataa ma jiraan waxaas kama jiraan only waa one family waa hal aragti waa hal qoys waa hal aragti oo keliya ay wada qaateen marka taas maxaa sababay inaan helnay hogaamiye daacad u ah ummadda oo meesha isku keenay sidoo kale anaga Soomaali haddaan nahay waxaan nasiib u yeelanay hogaamiyaal daacad noo ah oo mar walbo noo taagan u taagan anaga horumarkeena fahamsiinteena gaarsiinteena ka dhaadhicinteena baristeena everything noo taagan waxaan si gaar ugu mahad celinayaa walaalahayga leaderska qiimaha badan gudoomiyahayga mudane Cabdi Cali Sow iyo Nafisa Abdidoon iyo dhammaan leaderska kale ee Soomaaliyeed halkan ku jira waxaan leeyahay walaalayaal waa mahadsantihiin intaas ayaan ku soo koobayaa guuleysta dhammaantiin wabillahi tawfiiq ما شاء الله mahadsanid aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa soo jeedintaada